waftigii ka socday hay'adda Alpha Trust ee maalmihii u dambeysay ku sugnaa magaalada Hargeysa uu hogaaminayay gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye iyo agaasimaha guud ee hay'addaasi Cabdisalaam Muumin oo uu helinayo agaasimaha guud ee telefishinka caalamiga Universal ee Somaliland Maxamed Caabi Digaale ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo guddiga taakuleenta abaaraha ee gobolka Gabiley soo dhaweynka bacdi waxa waftigan loo soo gudbiyay aqalka martida ee magaalada Gabiley waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kooban oo mahadnaq iyo soo dhaweyn ka soo jeediyay maayirka degmada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi barasaab ku xigeenka gobolkaasi Ali Case iyo waliba xubin kamid ah guddiga taakuleenta abaaraha ee gobolka Gabiley oo faahfaahin ka siiyay xubnaha ka socda Alpha Trust saameynta xooggan ee abaaruhu ay ku yeesheen gobolka Gabiley ugu horeyn waxaan jecelahay inaad ku soo dhaweyno gobolka Gabiley khaasatan caasimadda gobolka waxaad leenahay soo dhawaada mar labaad waxaad ka mahad celeynaa runtii dareenka damqashada iyo walaaltinimada leh aad la wadaagaysaan dadkiina Gabiley farxad weyn bay noo tahay deeqda marka laga yimaado inaad dareentaan dhibaatada halkan ka jirta iyo dadkiina iyo u baahan idinka laftiina gargaar wax weyn bay runtii tahay xaaladda abaaraha aynu isugu nimi eedadunkuna gurmadkeeda u socotaan waa xaalad adag oo guud ahaan geeska Afrika wadamo ka mid ah taabatay gobolkan Gabileyna wuxuu ka mid ahaa gobolada ay sida adag abaartu u saameysay oo aan waxa weeye meel may dhaamin tuulooyinka markaad eegto waxaa la odhan karaa gobolada ugu daran nafun baanan ogeyn inay ku dhimatay gobolka marka la joogo laakiin dadka aad iyo aad bay u saameysay hadday noloshooda tahay iyo hadday wixii nolosha ka kaabayba tahay arinta gaarka ah aynu hoosta ka xariiqnaa waxa weeye kulankeena inuu yahay labada qodob oo maanta dadkii haysta oo gargaar degdeg iyo jawaab degdeg oo ugu baahan in qodob kamid aynu maanta ka jawaabno cidii ugu horeysay ee gobol ahaan nagala hadasha arintaasina ay Alpha Trust noqotay oo Universal runtii kaashanaya qiimahaas horta waxa la siido iyo waxa yaridiisa iyo badnidiisa annaga waxa nagala qiimo badan wax weeyaan hawsha bilowgeedii baad runtii ku soo hagaagteen ama ha noqoto qurba joog ama ha noqoto qodaal joog ama ha noqoto hay'adaha kala duwan ama reer galbeed ama wadamada Carabta hay'adii horeysay arinta nagala hadasha qiimaha gaarka ah bay leedahay waan ka mahad celeynaa baraarujinteeda iyo arintan in arin taagan inay tahay bay barbilo u tahay aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa wax weyn weey ilaahay ka abaal mariyo dareenka aad la wadaagteen dadkiina oo hawl loo baahnaa oo waqtigeega aad keenteen meel loo baahnaa inay ku baxdo Alpha Trust aad baan uga mahad celeynaa baahinta ay Universal TV baahiseen runtii awalna waynu ku naqaanay waan uga mahad celeynaa insha Allah taala idinka runtii deeqdan aad noo wadaan maanta inaad 100 qoys u qotaan beeraha oo qoyskiiba 5 saacadood ugu talagashay runtii aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa waan idinka gudoonay inkastoo sida la idin sheegay ay aad u badan yihiin beeraha gobolkani waxaan filayaa Jamhuuriyadda Somaliland gobolka koowaad ee xagga beeraha ah weeye awdal baa soo raaca laakiin waa gobolka koowaad ee marka beera la yiraahdo beeraha la qoto ee beer roobaadka iyo bustaanada biyaha ah gobolka ugu badan weeyaan Somaliland aad iyo aad baan u mahadsantihiin waanan idinka gudoonay kulay guddida muxuu ahaay qorsheyn doonta iyo wasaaradda beeraha isuduwaheedana uu maanta naga maqnaa Somaliland nagala joogo isna wasaaradda beeraha guddida ka tirsanay annaga si degdeg ah runtii halkaan idinku jahaynayna ee dadka beeraha loo qodi doono noqon doonana annaga runtii si degdeg ah idinku soo gudbin doona idinka aad baan idinku mahadnaqaynaa waan idinka gudoonay mahadsantii salaam horta Universal iyo Alpha Trust baa ducadii qaatay kol haday ku bilaabeen ay ku bilaabeen beer qodaalka ay ku bilaabeen oo dafcadii labaada waxaan leenahay labadiina Alpha Trust iyo Universal TV oo markii u horeysay furka ka jabiyay idinka qaatay ducadii
wuxuu idinka dambeeyana haba idinka xoolo bataane xaggiina ku soo horreysay mas-uuliyiinta sarsare ee ka socda hay'adda Alpha Trust isla markaasna uu hogaaminayo gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Gabiley waxay qayb lixaad la ka qaadan doonaan gurmadka iyo taakulada loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameynta xoogan ku yeesheen iyagoona ku dhawaad 100 qoys u qodi doona beero Najiib Cabdiwali Cabdixiis telefishinka caalamiga Universal magaalada Hargeysa